xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kala wareejisay tifida laba ruux oo kamid ah dadkii dhawaan ku naf waayay shaqaqadii ka dhacday tuulada Sincarro ee ka tirsan degmada Garadag isla markaana dhex martay labada beelood ee walaalaha Ceel iyo Caws wadaagta wareejinta kiiskan oo ay goobjoog ka ahaayeen barashaga gobolka Sanaag saraakiil sarsare oo ka tirsan taliska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaasha ciidanka asluubta iyo booliska ee gobolka Sanaag maamulka degmada Garadag gudida wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolka Sanaag cuqaasha waayeelka wax qaradka haldoorka iyo qorweynta labadan beelood iyagoo ugu horeyntii halka ay ka hadleen labada jif caaqil iyo magta la kala wareegayay waxaan wada 66 halaad oo jifidii walaaladeeda Axmed Faarax aanu waday waa 66 halaad waa jifida magta horaanteedii waa 66 waxaan leeyahay deniga gudoonta geelaasaan idin wada dejiif waxaan ka rabaa inaad iga gudoonto walaaltinimo iyo tulnimo iyo walaalnimana way isugu imaanayna waqtigeeda iyo xididnimadeeni labada jifiyood ee 66 halaada ee walaaladii Jibriil Xasan ay noo keeneen waanu aqbalnay waanu ka gudoomanay jiifka iyo tolka kaleba wassalaamu calaykum oo Jibriil Xasan ay bixinayeen oo ay siinayeen walaalahooda Axmed Faarax sida fiican ee loo kala gudoontay inaanu goobjoog ka noqono aad baan ugu faraxsanahay annagoo ah gudigii nabadgelyada gobolka oo barasaabka hogaaminayay wallaahi annagu waxaanu ka nimi qoloyadan hogaamadii Hargeysa waxaanu u nimi hawsha shaqaqada ee dhacday alxamdulillah meel wacan bay noo maraysaa meel wacanna way maraysaa dadkii aanu nimina dad wanaagsan oo qurux badan oo dhibka dhacay ka xun bay ahaayeen waxaan la soo kulanay oo kale jifa la kala qaadanayo xuquuq ay isku lahaayeen ay ku kala gudoomayaan marlabaadku waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha runtii beesha Jibriil Xasan ee geela sida sharafta la soo gudbisay geela quruxda badan soo gudbisay sida sharafta la ku wareejisay waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa walaalaha beesha Axmed Faarax oo geela runtii si sharaf loo qurux la ku gudoontay beelood ee walaalaha ay halkan maanta ku kala qaatay jifiyaha iyo dhammaanba mas'uuliyiinta halka isugu timi salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala marka hore horraameed iyo mar walba mahad iskale way lagu mahad celinaynaa waxaan runtii ku hambalyeeynaa oo aan aad iyo aad si qiimo badan oo karaamo leh oo miisaankeeda leh ugu hambalyeeynaa uguna mahad celinayaa walaaladaydan Jibriil Xasan oo keenay ومدرسيري وربعين تقنك جمهورية الصومال الآن قردك